xaflad si qurux badan loo soo agaasimay looguna dabaaldegayay 16 guurada maamulka Puntland State of Somalia ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. kulankan oo ay ku dhamaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland ee ku dhaqan dalka Norway ayaa si weyn looga hadlay xaaladda guud ee maamulka iyadoo mas'uuliyiintii ka qayb qaadanaysay kulankan qaar ka mid ah halkaasi ka soo jeediyeen khudbado qiimo leh. waxaa ugu horeyntii khadka telefoonka si toos loogu helay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaanu Gaas uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda maamulka Puntland una dabaaldegayay maalinta 16 guurada ka soo wareegtay xilligii Puntland ay dhisantay 1998. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هدي سلام يا أخي نروي. لكن ورثة طلنا يا هذا. كل شيء سنة تقول لك سمنات عشان كي دوكيان. يا سلام يا بنات أنت قبل هذا الشهر وما عندك أنت كسر البشرية ولا فيه. وطن كي عاد ولا وفينا. واحد من مجرى أنا هنا عبارة حتى كلها. وفي المغشيات عن الإعلامي هذا حاجة دلالة مركز إلى أي مضاف الوعي النظر عن دلالة موجودة معناه إذا كل المركز موجودة على صحيحة سوداء عارفة على شيء ما ذكر فينا الدلالة أقول لنا الدلالة إن شاء الله وقت دلالة دلالة بينامس كان الحمد لله طيب سوى خلاص الوصف حيعي قلنا وحي وقت مريكا وقت ذلك الكلام أنا أروح أنا يوضع أن يتبدل الوصف ذلك سوى كبشة يتبدل ذلك دمانها ذلك الرجالية ذلك حياة الدولة منه هي إنه يستبدل بدل يكون موضوع كاريات شغالها يدلك هذا مركز سؤال بالأولي وحانا العلام إنه يقول لا أفرط نعيك سوى الله الشركة هذه ولا تنتهي waxaan rabaa hambalyo inaan halka uga jeediyo dhammaan meel kasta ay joogaanba dadka reer Puntland markay dibadda noqoto iyo gudaha waddanka markay noqotoba hambalyo u diraya dadweynaha guud ee reer Puntland dawladooda madaxdooda madaxweynaha ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda golayaasha kala duwan ee munaasabadda 1 August soo dhaaftay oo aan maanta xuseyno aasaaskii dawlad goboleedka Puntland waa idin salaamay maantana waxaan idin kaga soo hambalyeeynaa faaliyada Puntland ee Norway baa idin soo hambalyeynaysa waxaan rajaynaynaa inaad naga godoontaan maadaama hadda aan maqlay madaxweynaha hadalkiisii salaan 14 islaamka naga gudoomo salaan ka bacdi waxaan maanta inta halkaan u soo istaagay anagu hadal badan ma hayo awal wadanka aad uga warqabin laakiin waqtiga xaadirka indha ay baxay waxaan isleeyahay siyaasi baad noqon doontaa mardow waxaan rabaa dadka halkaan jooga oo reer Puntland taaliyada reer Puntland aad bay uga seexata wadankii markaan idin maxay tahay xogwarna aan idin sheego magaalada Garowe ilaa Gaalkacyo inta laga yimaado maalintii waxa ku dhimata 11 qof baa waxa u dhimata shil gaari u dhimata shilka gaarigana waxa koos gareynaya wada la'aan wadanku wada ma leh biyo ma leh motor ma leh maxay tahay xoolaha raad way waqtiye bal marka dambe horta marka koobaad markaan biyo ay dabaleed bal ku qodnay hadda roob iyo waxa da'ay bal wadada marka hore aynu dhisno hadal waxa la ku fuul baa isku qaabtay hadalkii buraale iyo boqor baaba noobay noogu dhintahay taageero mar hadii la yiraahdo waxa la yiraahdo oo hadda wadooyin dhisan iyo adduun iyo baa loo xafladeeyaa taasna waa imaanaysaa anigu hal kaliya looranaya kaliya waxa weeye ummaddu inay isku tashato oo sida hadalkii ugu dambeeyo alqoolaha ayaa anigu ayidaya taageeradana waxa la qabaa injineer buraale go'aankii dawladda ay ka qaadatay federaalka xildhibaanadii maanta gaalay ka noqday oo xamar ku noqday fasaxa uu noqonay bishaasina ka horsugayna laakiin waxa weeye dhagado waa dharaarbi
إلا يسكت الشضو جودة يدبد بقى يالو بهاي هذا الوحبة ترى بدك اللحية تبصره قفش السدي وقانقاه ياد بان رجي أبابولي حفلة الترقية قبله أنت كقيقواتي ويجر عباس وقابلي يا أحمد كاش يا كرلي يا قبلها يا كلي ياد بان وهم بليرنا والرفور بكويا لا عيلو بقداليري وحويدت كين دبدة جوجا أيها ودك وحكي قبل إيش أنا وحلي سجمين همبليو ذا اللي تبنجوردي بوتلان الريب بوتلان بانا هاي نعرف قاعد كسبها بتصتين ريب بوتلان بانا هاي وأنكو فرح سنة هاي إن شاء الله الكريم وحن همبليينا هيا سيدا أضحوا قبتين صاد الصوك عدين أنا أقول لك يا جانو كهينا إن شاء الله وحنا همبليين يا دتك كسو شقي حفلة همبليين لبعض وحنا ندير هيا دولة دكتور بلان وهو قابين هيو بروفيسور عبد الولي محمد علي قاس يوم مدحوينا كحجين كيسا يو قدوميها برلمانكا وحكلو هذا ماركتي لا قعون كرو لو دردري كرو تاريخيا waxay taariikhdii inaan soo qoro aan ka hadlo wixii Puntland lagu sameeyay Soomaaliduna waxay ku maamaada ololka hasha maxaa ka keenay oonka ka keenay baa la yiraahdaa Puntland waxay la aasaasatay markii dawladdii dhexe oo dadka isku haysay ay duntay saasay u kacday waxayna tiri war sidee dadka dariska nala ana uga nabad galnaa annaguna isu nabadgelinaa waxaan halkan hambalyo iyo salaan uga dirayaa asaaska maalinta Puntland shacab weynaha reer Puntland meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay shacabka reer Puntland sanadkan sanadkiisa kale ku waara bashbash iyo barwaaqo waxaan idin rajaynaynaa horumar barwaaqo iyo bashbash waxaan rabaa inaan arrin yar baraarujiyo Soomaaliya way burburtay burburkii in badan dadkeenu wuxuunbaa ka badbaaday waxa la rabaa oo in kala dardaarmaya waxyaalihii lagu burburay inaynu ka fogaano waxyaalihii lagu burburay oo waqtigii 90 lagu burburay inaynu ka fogaano oo ugu horeysa qabyaaladda xasan Saciid xasan Raasta SNTV Oslo Norway